kulankan ay xildhibaanada aqalka sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya la qaateen bulshada rayidka ee Puntland waxa ay kaga warbixiyeen socdaalkooda ku aadan xal u helista khilaafaadka siyaasadeed ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole waxa uu sheegay inay la kulmeen qaybaha kala duwan ee dawladda ee Puntland balse aysan weli xal kama dambaysa gaadhin. shalay waxaan la kulanay wali fulinta madaxweynaha iyo golihiisa wasaaradda baan shalay kula kulnay madaxtooyada isla shalay waxaanu kula kulnay baarlamaanka guddiga joogtada ah oo baarlamaanka waa xiran yahay hadda wixii khilaafka oo ku saabsanaa qodobadoodii aan ururinay wax ka weydiinay wixii duruuf ah oo Puntland u gaar ah oo ay ka qabaan inay noo sheegaan iyo wixii caam ahaan ka wada dhaxeeya shanta state in ka dhaxaya baan wax ka weydiinay fikrada ay ka qabaana waanu ka ururinay markaan dhamaystiro maanta idinka in aragnona haddii ilaahay idmo report baan ka qoraynaa reportkaasna wuxuu tagi doonaa golihii awal soo diray wufuudan halkaasaana markaas lagu micnayn doonaa markii kuwa kale kala yimaadaan Puntland baa ugu soo hormarnay oo horyahan timi waana ugu dhib yartay anigu saan isleeyahay meelaha kale meelaha hore khilaafka dawladda waxa kala dhaxyeena waa jiraan. qaar ka mid ah bulshada rayidka ayaa su'aalo la xiriira khilaafaadkan soo noqnoqday weydiiyay sanatarada ka tirsan aqalka sare kuwaas oo ay uga jawaabeen. war dhibta jirta waxay tahay anigu aan mar walba aan jawaabta waayay war ma waynaan inagu waxayna samaysan karin waan qiimeeyay waxaan sidii haddii aynu dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada la saaro lacag 1 milyan ama $500,000 waxaanu aaminsanahay in lacagta in lagu soo dhameystiri karo constitution Soomaaliya. Federalism hala siiqeex oo waqti badan idinka aqalkiina sare ah iyo aqalka kaleba ha ku bixiyaan ku hasabtay in uu qaato federal markuu arkay Soomaaliya inay dhacaw socoto in ra'iisul wasaare khayra ha aamina hana ku shaqeeyo qaramada midoobay isagoo hor taagan oo title-ka loogu yeeray la yiri ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka buusan isticmaalin luminay horta lahaanshihii dastuurka inaynu nagu leenahay isma haysanee inay cid kale dastuurka inoo samaysay sugaynaa waa sidaa hanti aynu leenahay ma gelino inta badan runtii inay u dhintay qof kastoo Soomaaliyahood weydiiso waxaad fishinkiisa Soomaaliya wuxuu la rabaa qalbiga markuu ka hadlo wuxuu ku oranayaa Soomaaliya wanaagsan oo midah oo barwaaqaysan baan rabaa laakiin waxa imbalaaydahoo u qarsoon qofkaas Soomaaliyada uu rabaa waxa weeyaan Soomaaliya wanaagsan sidoo sheegayo oo barwaaqaysan laakiin reerkooda xukumo. Sanataradan ka socda aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya ee loo soo diray maamul goboleedyada inay xaliyaan khilaafaadka u dhaxeeya dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo waliba dawladda federaalka waxay sheegeen in wali aysan jirin maxsuul ay soo saareen isla markaasna marka ay kulmaan dhammaan aqalka sare xubnaha ka socda ay soo saari doonaan warmurtiyeed rasmi ah. si kastaba iyadoo aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya uu kacay dhexdhexaadinta dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa haddana ay sii socdaan falalka kala shakiga ah kuwaas oo ugu dambeysay in maanta maamul goboleedyada ay dawladda federaalka ku eedeeyeen kacsanaanta siyaasadeed ee ka jirta maamulka Galmudug. Maxamed Salax SBC Garowe.